السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسك الحج، أعمال الحج رقم 8 وكليبكي سديدات، وأرجو إن شاء الله تعالى إن سديدا قيبودنا عن هدا كسو جبينا قيبتان هراء إن شاء الله تعالى. قيبتان وحن وهذا لنا أرمج جوجوس حياة بدن بالربعين عن وهذا الله وحوه الرياء قبور تبقيع الغرقد أما وحويان قبرها ay ku jiraan asxaabu rasuulillahi sala allahu alay wasalam in badan oo ka mid ah. Rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu yidhi ana awal waxaan ahay qofka ugu horeeya oo dhulku ay soo baxa, uma abubakar iyo cumar ahlulbaqiic baan u iman, iyagana waa la soo xashrin doonaa insha allahu tacaala, uma ahlulxaramayn ayaa ahlulmaka ayaa iyaguna imaan doona. fadaaisheeda waxaa ka mid a qubuurta 10,000 oo saxaabi ayaa ku aasan oo Uthman iyo Caaisha iyo azwaajta rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay ku jiraan. ولذلك أيها الأحبة أيا مارك نسأل الله إلهي وحن ويديسنا أن يرزقنا إنه إنه أرزاق إننا إن قبور تبقيع الله إنه آسو إلهي بن ويديسنا سبحانه وتعالى. وحكمل أوكله وحيابها عربنا إن كهذا الروضة. الروضة ومكان markii qofka magaalada Madiina tagay ama masaajidka tagay midab gaar ah bay leedahay la isku dilo oo meesha qabriga rasuulka u dhoweeyaan. Rasuulku wuxuu ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna, gurigayga oo xujuraadku meesha ku yeelaan ah iyo rawdada inta u dhaxaysa waa rawda min riyadil janna, waa beerbeerihi janna, wa minbari ala hawdi. Allahu akbar. منبركي ونوحكو يا لابد حوضك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث إمام البخاري وصوصار علماء شرحات يكبحين سيد الشيخ إمام النووي رحمه الله وحولي مركو في كتاب كيسا شرح صحيح مسلم وحديث كان شرحها يي وحا الروضة والروضة مركي لعبر ما بين البيت ومنبر الروضة من رياض الجنة لبا الرمض وأن مدباليري إن مكان كان بقى أما بوس كان روضة هذا كتها لإنتي لنقليوه jannada loo geeyo oo jannada loo naqliyo jannada kamid yahay, iyo in acmaasha lagu sameeyay ay jannada qofka u geynayso oo ay sabab ugu noqonayso. taasna waxaa ka muuqata ishaara in la isku tarqiibiyo maartay in magaalada Madiina degaan laga dhigto oo qofku u dhawaado insha Allah taala. waxaa kaloo rabnaa inaan ka hadalno masjid Quba iyo ziyaaradiisa. masjid Quba waa awal masjidkii ugu horeeyay horta ay muslimiintu ay dhisaan. waxaa masjidka Makka ayaa ka horeeyay awal masjidin wadica awal bayt wadica linnaas, waxaa masjidka xaraamka weeye, laakiin masaajid dadkan dhisaan waxa ugu horeeyay kan Quba ayaa ugu horeeyay. marka qofka soo booqanay in la booqday waa sunne. rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam man tatahhara fi bayti, qofka gurigiisa ku soo tahaara qaato soo weysaysta haddana masaajidka Quba yimaado salaad oo ku tukada waxa uu dhigantaa ka ajr عمره دان أجركيدا أيو هليا. وحديث إمام الترمذي سو صار الشيخ الألباني أو صحيحي. رسولك صلى الله عليه وسلم ابن عمر باوحولي رأيت النبي يأتيه كل السبت مالين كستوء السبت رسولك وإمام جري صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث إمام البخاري مسلم أي سو صارين. ابن عمر مرة بعد وحولي كان النبي يزور قباء راكبا وماشيا. رسولك وصوب وقنجري مسجد قباء يسوق جديد صارين يسوق أنصارين با وحو كنت كنجري الله برك عضد. وحديث إمام البخاري مسلم أي سو صارين. مركب مسجد القباء فضائشها سلية. maxaa ka jira masaajid kale oo 7 ah. المساجد السبعة اللي لا 7 مساجد kale ee la booqdo oo uu ku jiro مثلا مسجد القبلتين iyo مساجد الفتح iyo ma ay ku jiraan oo la booqdo. imaam waxa su'aasha si toos loo weydiiyay samaahati sheekh ibn Baz rahimahullah wuxuuna ku jawaabay laysa laha aslun. masaajidda tirada badan ee kale asal male. waxa sunnadii waa inuu qofku soo booqdo masaajidka nabawiga ah kadibna masjid Quba uu soo booqdo salaadana uu ku tukado ayaa wax sunna ah laga haya. kuwa kale wax ka sugan ma jirto. رسولك صلى الله عليه وسلم نوحي لا تشد الرحال يعني إلا إلى 3 مساجد. 3 مساجد بعبادة لا هذا سيد أضبا ومارتي اللوغو صفراء والله بحا وانا مساجد كحرم كا وبقول كن أو صلاة ب100,000 صلاة. يعني صلاة دي سو أقول لك أنتو بقول كن أو صلاة أقول لك أنتو. يا مساجد كالنبوي
oo 1000 salaadood u dhiganto iyo masjid baytul maqdis oo ay 500 oo salaadood u dhiganto marka masjidu quba looma soo safrin isaga oo safar looguma imanin markii magaalada madiina la yimaado amaakinta iyo goobaha la booqdo buu ku jira oo kaliya way ziyaaratu kadibna shuhada أحد أو كلا إن لب صوب بغضو ويجنا لو يمادو أنس رضي الله عنه بوحول حديث بخاري مسلم صارين رسولك أيان لبح ودو وأخذ من جروان راعي مركو كسر الله بنا يمجال مدينة وبورت أركو جبل أحد بوعنجر هذا جبل يحبنا ونحبه ولا كاسوا بور يدنا نجعل أننا أنجعله كذب الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم ما بين اللابتيها إلهي والله بدن بورد أنت قلنا حيسا أيان أنا التحريم كذا سيدو كتحريم إبراهيم مكة يعني سدو ميل حرمها لا إلاليو لا قدريو وقد جيبان أنا وقد جيا اللهم بارك لنا في شرعها ومدها برسول صلى الله عليه وسلم حديث إمام البخاري صاري إلهي ونوبركه صار عادي مد كذا وحيا وحلو بيكتو غير مدينة أي استعمالا جبل أحد هلكا waxaa ka dhacday mowqicadii iyo dagaalkii weynaa ee la yaqiinay baa ka dhacay 7 asxaabu rasuulillaahina halka ay ku shahiideen oo Hamza uu ku jiro ayaa ku shahiiday marka rasuulku si mutakarir ah oo istabajoog ah u soo booqan jiray una ducayn jiray assalaamu alaykum ahla diyaar min almu'miniin walmuslimiin wa inna insha Allah bikum laahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-aafiyah ayuu oran jiray sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ugu dambeynta iyo gabagabada waxaan ku gabagabaynaa cajwatul madiina magaalada madiina iyo timirteeda cajwada la yiraahdo rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii man tasabbaha kull yawmin 7 tamarat oo cajwa ah qofkii subax walba 7 timir cuna lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun wa hadith Imam Bukhari Muslim soo saareen sun iyo sixir toona asiibi maayaan maalinka iyaga qofkii 7 cuna culimadu waxay marka ku fasireen malathir cajwadu wuxuu waa qayb oo kamida timirta oo xogaan madow xaqiisa xigta weeyaan laakiin culimada qaar kale waxay tilmaamayaan man akala 7 tamarat baa la yiri 7 timir inta badan ahadiista marka timirta madiina oo dhan ayaa arinka insha Allah ta'ala faa'iidada laga helaya cajwada si gaar rasuulku wuxuu xadiis Imam Muslim soo saaray al ajwatu min al janna wa hiya shifaa'un min as-sum cajwada jannadayba ka ahaatay waxayna daawo ka tahay sunta ayay daawo ka tahay Imam Nawawi rahimahullah ayaa wuxuu leeyahay ahadiista waxaan ka qaadaynaa timirta magaalada madiina iyo cajwadeeda fadliga ay leedahay iyo 7 xaba in laga cuno waxa su'aal in la isweydiiyo way 7 xaba loogu qayday إمام نووي سؤال كجوابه وحيره ويا صلاة شن لو قيدي ويا الزكاة مرك الله بحنا أيوه لو يرهدوا حوله أنت جارن أنت صلاة بحنا مرك عبادة ده ووح لينو قدري أو توقيفي أو واحد إنه إسكسر ما يسنكرناه ماشي تطبق حبات تمر على قدر أنا ضد ترى أنا تطبيق توم بابا عنايا ويكسر بدنتهاي صح من نقانيس وأنت للشيء إن تكون جوكسته إلهي سبحانه وتعالى أعماش إنه أقبله إلهينا سبحانه وتعالى عجوة المدينة الله ينوكسينا عنه عذر ردنا إلهي هينا قصاره وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى وحرجينا يا كليب كان وحي كدن بيا وحو نقنطونا حجك إيو إنا نسكو أرقنا هدي الله يدمو وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته